madaxweyne Donald Trump waa nin xariif ku ah fahanka dagaalka iyo istiraatiijiyadda qaabka ciidamadu ay u howlgalaan. waxaa la ogaaday dagaalkii u dhaxeeya waddanka Hindiya iyo sidoo kale Pakistan ee dhowrka maalin soconaya sababta Mareykanku uu si degdeg ah ugu soo farageliyay dagaalkaasi in la istaajiyo. mid ka mida gantaalada halista ah ee BrahMos la yiraahdo markii uu dalka Hindiya ku garaacay saldhig ciidamada cirka ee Pakistan ay leeyihiin ayaa Trump markaliya waxa uu ka soo salalay hurdada markii qobarada arrimaha dagaalka xogta ka siinaya u sheegeen gantaalkaasi oo ay Hindiya iyo Ruushka isla farsameeyeen in la isticmaalay. waliba waxaa jirtay ballan adag oo u dhaxaysay dowladda Mareykanka iyo Hindiya oo ahayd in gantaalkaasi isticmaalkiisa si loo ogaado muhiim ay tahay in lagu xiro bambooyinka nuclearka ah ee dalkaasi Hindiya uu hayo. markii gantaalkaasi lagu garaacay saldhigga ciidamada cirka ee waddankaasi Pakistan ay leeyihiin xog waxaa la helay ku saabsan Pakistan inay isku diyaarinayso weerar nuclear oo ka dhana waddanka Hindiya. haddii marka bambada nuclearka ee Pakistan ay dhac lahayd Mareykanku muxuu dareemi lahaa gobolkana sidee noqon lahaa. tani waa mid dhalisay DG Vance oo si degdeg ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu taleefanka u diro ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi. halka Caasi Munir oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida isla markaana go'aanada dagaalka iska lahaa ee Pakistan oo Marco Rubio uu la soo hadlay. haddaba qiso weyn ayuu ka qoray arrintaasi wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka iyo waliba hadafkiisa lagu joojiyo dagaalkaasi. xog badan oo sirdoon ayaa hadda soo baxaysa oo waliba ku saabsan in Trump uu qalqal dareemay haddii nuclearka uu faraha ka bixi lahaa caalamku halis aan la dheersan karin ayuu dagaalkii Hindiya iyo Pakistan galay, taas oo warbaahinta aad looga ilaaliyay. laakiin hadda soo baxaysa xog dhammaystiran sheekadaas min bilow ilaa iyo dhamaad ayaan kula wadaagayaa. intaasi waxaa raaci doona haddii uu Rabbi saamaxo. dowladda la yiraahdo Turkiga qudheeda dowladaha baraaruga ayay ku jirtaa. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya warbixino sirdoon oo ay sii daynayaan warbaahinta adduunka oo ay dalalku soo saarayaan. qaybta akademiyada ee hay'adda la yiraahdo MIT oo sirdoonka waddanka Turkiga ah ayaa sii daayay daraasad talooyin badan huwan oo ku socota dhinaca Mareykanka dhinaca la yiraahdo Turkiga. waxaa la yiri madaxweyne Erdogan marka la fiiriyo dagaalkii 12 maalin dhacay waxaa loo baahan yahay Turkigu in dhowr dhinac uu isku adkeeyo waxaana lagama maarmaan noqonaya baa la yiri sida warbixintu ay leedahay in dagaal Turkiga uu gali doono muddo aan fogeyn si marka aanay fashil dagaal u dhicin iyo ceeb dhinaca militariga ah. waa in talooyinkan la soo jeediyay la qaato. haddaba talooyinkaasi maxaa ka mid ah? howshu waa culus tahay, waan kula wadaagi doonaa. dhinaca Faransiiskuna waxay rabaan dhinaca carabta inay uga garab raariciyaan oo ay yiraahdaan waan idinla jirnaa. dhinac kalena Israa'iil ayay rabaan inay raaligelin ka siiyaan. waxay leeyihiin aqoonsigii aan u soo wadna Falastiin shardiyan ku xireyna. shardigaasi muxuu yahay? haddii aad aragto adaa yaabayaba. waxay leeyihiin Hamas waa inay hubka dhigto, Qasana waa in laga fogeeyo. haddii aan sidaa la yeelin ballantiya laga baxaya. haddaba yaa warkaasi soo jeediyay barnaamijka ayaan sidoo kale akhyaaray ku qaadaa dhigi doonaa. Cabdicasiis Barrow ayaan ahay. waa 2 August sanadka 2025. meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana follow soo dha page-ka saaxiibada la wadaag muuqaalkan qaybta hoose ee faallada ama commentigan aragtidaada ku soo qor. aad baad u mahadsantihiin. bishaaro cusub ma doonaysaa in laguga cumreeyo waalidka oo dhintay ama aan awoodi karin inuu xaramka tago adiga oo aan safrin ama aan dhibtoon? haddaba la xiriir xamlada Safa wal Marwa. waxaa lagu soo duubayaa
fiidiyowga muujinaya goobaha barakaysan ee cumrada ka dhacayso iyo weliba shahaado caddayn ah. haddaba ka faa'iidayso qiimo dhimista oo ah $250. wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa nambarada shaashadda ka muuqda. wargeyska carra Maraykan ka soo baxa ee la yiraahdo Wall Street Journal ayaa waxa uu qoray warbixin xasaasi ah oo daboolka ka qaaday in Trump uusan la xajeclo iyo badbaado dadeed uusan u joojin dagaalkii koobnaa ee dhexmaray dalalka Pakistan iyo Hindiya ee ishareere yaala, labadaasi qaran oo ku hubaysan bambooyinka nuclearka. markii dagaalka uu bilowday, Trump waa hadlay. waxa uu yiri Maraykanka dagaalkan ma quseeyo, sidaa daraaddeed wax saameyn uu nagu leeyahay ma jiraan. laakiin waxaa jira baaqiyo diblomaasiyadeed oo kala duwan oo Washington ka soo baxay oo la leeyahay dagaalka Georgia, miiska wada xaajoodka isugu imaada, yaan la isticmaalin hubka qatarta. warar baa jiray arrimahaas la xiriira, laakiin waxa muuqanaya Trump bal in uu eegayay haddii ciidamada Pakistan ay isaga filan yihiin Hindiya, iyo haddii dagaaladaasi Hindiya ciidamadoodu bal maadaama ay leeyihiin xulufo gobolkaasi u joogta inay waxgeli karaan haddii dagaal Shiinaha lala gala u dhaco. tijaabana waa ahaa dagaalka. awoodda Pakistanna waa lagu ogaanaya maadaama ay salka ku hayeen Ruushka iyo Shiinaha iyo dowlado kale oo aan saaxiib la ahayn reer galbeedka qaarkood. arrintaasi markii ay dhacdo kadib, ciidamadii Pakistan waxa ay sameeyeen wax la yaab leh. warbaahinta adduunka ayay qabsadeen. wargeyska Geo la yiraahdo ee Pakistan ka soo baxa iyo telefishinkaasi ayaa indhaha lagu hayay, maadaama ciidamada Pakistan ay noqonayeen kuwa horumarada sameynaya. diyaaradii Rafale ee la soo riday ee Faransiisku uu farsameeyay, duqeymihii dhacay, diyaaradihii droniska ahaa ee boqolaalka ahaa ee Pakistan adeegsatay, intaasi markay ay dhaceen kadib waxaa la isweydiiyay bal maxay Hindiya samayn doontaa. dowladda New Delhi iyo Narendra Modi uu hogaamiyo waa Hindiya aad baa xanuun badan u soo gaaray. kadibna waxay adeegsatay gantaalka la yiraahdo BrahMos oo ah gantaal sida xogtiisa ku diiwaan gashan ay tilmaamayso in aan iraahdee ay farsameeyaan wadamada la yiraahdo Ruushka iyo Hindiya oo markaasi iskaashanayay. gantaalkan xog sirdoon baa jirtay oo Maraykanku iyo Hindiya ay ka wada hadleen ee la yiraahdo si aan dhaqdhaqaaqiisa ula soconno, gantaalka loo xakameeyo. haddii aad Hindiya tihiin oo adnaga nala socotaan bambooyinka nuclearka waa inay ku xirnaadaan oo aan si degdeg loo isticmaalin. marka Hindiya gantaalkii ayay isticmaashay. gantaalkii markay isticmaashay kadib oo weliba lagu weeraray baa la yiri mid ka mida saldhigyada ay degan yihiin ciidamada cirka ee wadanka Pakistan, meel ku dhow Islamabad ku yaala ee Nur Khan la yiraahdo, ayaa Maraykanku baraarugay. waxaa la ogaaday gantaalkan cufkiisa iyo culayskiisa iyo burburka uu geysan karo inuusan ahayn mid sahlan. kadib xogo sirdoon baa soo baxay oo iyana aad iyo aad muhiim u ahaa, oo maadaama dagaalka xogaha inta badan ay ka muhiimsan yihiin in la ogaado hubkan iyo dagaalkan iyo awoodahan. waxaa ka horeeya horta xog inaad hesho aad ku dhisto meesha laga jiro iyo waxa dhacaya intaba. xog baa marka soo baxday tilmaamaysa maadaama gantaalkaasi la adeegsaday howlgalkii la oran jiray Bunyanul Marsus ee dalka Pakistan in isna hubka la adeegsanayo yaro kor loo qaado. waxaa yimid marka aragtiyo kala duwan oo miiska Pakistan soo fuulay ee waaxda hagidda dagaalka iyo go'aanka gaarista. khubarada qaar waxay soo dhigeen maadaama gantaalkan la adeegsaday waa jawaab degdeg ah in la bixiyo, nuclearkana looga hormaraya, marka inaga waa inaan adeegsano. intii lagu jira arrintaasi ayaa kooxaha sirdoonka ee Maraykanku iyo reer galbeedku waxay heleen miiska Pakistan in go'aankaasi uu saaran yahay, awooddaasna la isticmaali karo. marka waxaa la yiri waa in si degdeg ah arrintan loo wargeliyo. Trump oo White House ka jooga ayaa xogtaas la wadaagay. kadibna isku dhaxyaac fara badan ayaa la gaaro. la yiri haddii saacad gudaheed dagaalka labada dhinac aan lagu dhaxgelin, adduunka masiibo weyn ka dhacaysa. kadib maxaa dhacay? madaxweynaha ku xigeenka dalka Maraykanka DJ Vance ninkan la yiraahdo
ayaa taleefanka kula hadlay Narendra Modi waxana uu ku yiri waa ra'iisul wasaaraha Hindiya waxa uu ku yiri dagaalka inaad joojisaan xabad joojin degdega ayaan u baahanahay oo wixii taleefankan ka dambeeya aydan xabad ridin kadib Rupeo ayaa isna la hadlay waa xogayaha muraha dibadda ee Mareykanka oo haddana ah la taliyaha dhinaca ammaanka labadaas xil oo hadda isku haya xilligaas laakiin waxa uu ahaa xogayaha muraha dibadda waxa uu la hadlay General Qasim Munir oo ah taliyaha ugu sareeya ragga go'aan qaadashada geed fadhiga mustambeedka u ah Pakistan kamid ahaa iyo waliba wasiirka muraha dibadda Pakistan Ishaq Dar waxa uu ku yiri Mareykanku waxa hadda uu doonaya dagaalka in la joojiyo xogtiina waan helnay nuclear yaan la isticmaalin isla markiiba madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa hadlay Donald Trump waxa uu ku yiri labada dhinac xabad joojin aan kala dhax dhignay marka Mareykanku waxa arintan soo dadajisay inuu joojiyo dagaalka Hindiya iyo Pakistan waxay ahayd xaalad oo meeshii ugu dambeysay darbiga la isla gaaray oo saacad gudaheed ay suuragal noqon lahayd inaan markaati ka noqono dagaal nuclear la isku adeegsanayo adduunka ka dhaca marka Mareykanka si uu xakameeyo arintaasi Trump degdeg oo arintan ku soo farageliyay adduunkana waa uu sheegay colaadii in la dhameeyay dawladaha adduunka soo wada dhaweeyay laakiin xogtan waa laga qariyay warbaahinta sargaal sare oo Mareykana ayaa arintan u dusiyay wargeyska Wall Street Journal kaasoo hadda la wadaagay warbaahinta adduunka oo soo bandhigaya haddaba markii aad eegto sida arintan loo maareeyay iyo waliba ciidamada Pakistan qalqalka laga muujiyay iyo gantaalka Bahamas la yiraahdo ay isticmaaleen ciidamada dalka Hindiya maxaa lagu fasiri karaa haddii arintan ay dhici lahayd waxa qasab noqon lahayd dagaalku inuu ka sii balaarto labadan dal dawlado fara badan ay soo galaan marka Mareykanka iyo Trump marka la fiiriyo hanaan ilbaxnimo leh ay u maamuleen dagaalkaasi la joojiyo qodobkaas halkaas ayaan ku dhaafayaa dhinaca qiimeyntii dagaalka ayaan wali ku guda jirnaa hay'adda akademiyada qaranka ee sirdoonka dalka Turkiga ayaa soo saaray warbixin xasaasi ah oo dhowr dhinac taabanaysa warbixintan waxay ku saabsan tahay qiimeyn sirdoon oo la sameeyay dagaalkii 12 maalin socday ee u dhaxeeyay Israel oo garab ka helaysa Mareykanka iyo dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran haddaba talooyin muhiim ah iyo warbixintu soo jeedisay waxay leedahay dalka Turkiga waxa qasab noqonaya mandiqadan xasaasiga oo ku yaala marka la eego iyo hanjabaadaha kala duwan ee maanaya inay suuragal tahay dagaal ballaaran in la gali doono waliba Turkiga dagaalkaasi uu gali doono marka si loo badbaadiyo qaranka waxa muhiim ah bay yiraahdeen in la sameeyo 7 qodob oo aas u ah awoodda qaranka waddanka Turkiga waxay yiraahdeen waa in la dhiso nidaamyada difaaca cirka ee dalka Turkiga kuwan hadda yaala awood badan ma laha marka la qiimeeyo waxa ku dhacay Mareykanka reer galbeedka oo Israel difaacaya waxay leeyihiin dagaalkii u dhaxeeyay Israel iyo Iran waxa uu muujiyay baahida loo qabo nidaamyo difaac oo awood badan leh oo waliba ka samaysan lakabyo kala duwan warbixinta waxay si gaar ah u xustay muhiimadda nidaamyada difaaca ee ilaalinta kale meelaha istiraatiijiga ah sida xarumaha sirdoonka maadaama labada dhinac ay si weyn isku garaaceen qodobka labaad wuxuu leeyahay waa muhiim in la hormariyo gantaalada baalistiga ah iyo kuwa hypersoniga ah ee dalkeena uu haysto waa Turkiga waxa leeyahay in kasto Israel ay haysato nidaamyo difaac oo horumarsan haddana ma aysan difaaci karin si buuxda gantaalada hypersoniga ee Iran sidoo darteed warbixintu waxa ay ku boorisay Turkiga inay si degdeg ah u maalgeliso horumarinta gantaalo awood badan leh oo adduunka cajiib u noqda qodobka saddexaad ee la soo jeediyay waxay tahay xoojinta dagaalka elektarooniga ah iyo tiknoolajiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Iran waxay la kulantay dhibaatooyin sabab ay u yihiin weerar elektarooniga taas oo keentay warbixintu inay booqato baa ku baqdo Turkiga inay la hormariyo awoodda elektarooniga ah ee dagaalka markastaba warbixintan waxa lagu dhisay awoodda Israel ay Iran u isticmaashay iyo dhinaca Iran galdaloolooyinka ka soo muuqday dagaalka
qodobka saddexaad waxaa la leeyahay waa in la dhiso guryo dhulka hoose ku jira si dadka loo badbaadiyo waliba magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah haddii ay dhacaan duqeymo aad iyo aad awood u leh. waxaa sidoo kale la soo jeediyey in la dhiso nidaamyo ka diga ka hor gantaalada intaanay hawada soo gelin. kuwan hadda waxaa la leeyahay in badanba lama howlgelin laakiin waa in la sii hormariyo. waxaa la yidhi waa in laga hortago unugyada hadda abuurmi kara ee sirdoonka Israa'iil ama kuwa cadowga ee Turkiga ku dhex jiri kara. marka qodobkaasna aad buu muhiim u yahay. Iiraan ayaa lagu saleynayaa marka la fiiriyo madaxdii sirdoonka, madaxdii aan iraahdo sayniska iyo madaxdii ciidamada iyo dadkii muhiimka ah ee la beegsaday waxaa ka shaqeeya sirdoon gudaha ah. si marka taasi aysan u dhicin Turkiga waa in xilli hore uu sii baraarugo. waxaa sidoo kale la soo bandhigay qodobka 7 ee ugu dambeeya xoojinta midnimada qaranka iyo wadajirka bulshada. dagaal haddii la galayo oo aadan dadkaada haysan waxay u muuqataa in dagaalkaasi lagaaga adkaan karo. marka dawlad kasta maanta waxay qiimeynaysaa dagaal haddii uu dhaco maxaa cashara oo aan inaga ka baran karnaa. haddii marka dadku aanay sidaa u fakirin waxaa dhacaya in si fudud loogaga adkaado dawlado fara badan. marka Turkiga inta badan waxa uu qiimeyntan siinayay Iiraan maxay samaysay oo ku dhacay Israa'iilna weerar noocay ayay qaaday. marka labada dhinacba waa la daraaseeyay waxaana lagu akhriyay awoodda qaranka Turkiga uu leeyahay. halkaas marka waxaa kaaga muuqanaya Turkiga inuu ka baqanayo dagaal uu la gala Israa'iil isla markaana fashil uu ku dhaco. intee goor tahay ayuu rabaa inuu awoodiisa dhiso. Faransiiska loo imaanaya markan dawladda uu hogaamiyo Emmanuel Macron waxa ay leedahay ludda jecli hayda jecli. sababtu waxay tahay marna Israa'iil ay raaligelin ka raadinayaan marna carabtay leeyihiin Falastiin aan aqoonsanayna. wasiirka muraha dibadda ee la yiraahdo Faransiiska ninka la yiraahdo Jean Noël Barrot ayaa waxa uu ku adkeeyay in hubka ama hadal soo saar leeyahay hubka laga dhigo ururka Hamas isla markaana laga fogeeyo gabi ahaanba marinka Gaza. waxa uu yiraahdaa haddii aanay taadicin suuragal maaha inaynu ka shaqeyno xasilooni iyo nabad iyo dawladda aan doonayn inaan aqoonsano. xilli gargaarka bini'aadanimo ee loo baahan yahay inuu gaaro qaso ay muhiim tahay maxaabiista ay haysata Hamas in la sii daayo ay muhiim tahay ayuu leeyahay labadaas shardi. waxa uu sidoo kale leeyahay annaga waxaan doonaynaa inaan aqoonsano dawlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin. maanta haddii aan magaalada dagaaladu ka socdaan aan eego 40 ruux ayaa dhimatay inta badan dadkana gaajo ayay u go'ayaan. khiyaartayna la socotay tabinta qaybtana intaas ayaan ku hakinayaa. waa Cabdicasiis Barrow idale nabadgelyo. ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar